habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada qodobada wararka idaacadda kulmiye kubada ugu waaweyn. siyaasiga Nuur Ismaaciil Sheekh oo shacabka Soomaaliyeed ka dalbaday inay muujiyaan dareenkooda ku aadan heshiiska Imaaraadka ee dekedda Berbera. siyaasiga Nuur Ismaaciil Sheekh ayaa shacabka Soomaaliyeed ka dalbaday inay muujiyaan dareenkooda ku aadan heshiiska Imaaraadka Itoobiya iyo Soomaaliland ee ku saabsan dekedda Berbera. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warbixinta warkan faahfaahinay. nuur ismaaciil sheekh oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa cambaariyay heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee dhawaan ka dhacay magaalada Abu Dhabi ee dalka Isutanka Imaaraadka Carabta kaas oo ku saabsanaa dekedda labaad ee ugu weyn Soomaaliya ee Berbera. siyaasiga ayaa sheegay in dawladda Imaaraadka Carabta ay ku xadgudubtay madax banaanida iyo midnimada Soomaaliya loona baahan yahay in shacabka iyo madaxda ay si isku mid ah ugu jawaabaan. nuur ismaaciil sheekh ayaa shacabka Soomaaliyeed ka dalbaday in ay muujiyaan go'aankooda ku aadan heshiiska magaalada Berbera oo ay isku soo bax ka dhigaan magaalada Muqdisho. waxaan rabaa inaan baaq u diro shacabka Soomaaliyeed lagu xadgudbayo madax banaanidooda. marka dawladda Imaaraadka waxay ku xadgudubtay madax banaanida Soomaaliya. marka waxay maamul goboleed ku tilmaamtay in uu yahay dawlad madax banaan. marka shacabku waxa loo baahan yahay inay difaacdaan dawladooda, shacabka inay soo baxaan inay dareenkooda muujiyaan maadaama lagu xadgudbay madax banaanidooda. sidoo kale heshiiskii Somaliland iyo dawladda dhexe u dhaxeeyay waxay muujinaysaa in dawladda Imaaraadka ka xun tahay arrintaas ayna faragelinayso si uu burburana arrintaani ay u soo aadisay. marka arrintaas waa arrin laga xumaado. shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in ay isku soo baxaan dareenkooda ay muujiyaan maadaama lagu xadgudbay madax banaanidooda ayna difaacdaan dalkooda. dad badan oo Soomaaliyeed ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay heshiiska dhawaan ka dhacay magaalada Abu Dhabi ee dalka Isutanka Imaaraadka Carabta waxayna intooda badan ku baaqeen in dawladda Soomaaliya ay ka bixiso jawaab cad oo arrintaasi la xiriirta.